Audio Jungle. Audio Jungle. daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambaleel furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن أو ونكسن صاحب بيال ميل كستوى الدنيا كجوكتان كسر وهذا عوي عياره ورحي سبضان أو عياره كسابسن أيا إناس السعودة أو أي غيب كيهن عوا يا كلي سوق عيار توجا برشلون أو حدا يو ولي بمدح ذي قصر أي أو ذا كل ما يصير لوجا أريسدو وريها كعصب برشلون وريجا سانشو أو قدام بينتي كبع يا كوحدة دورتموند يا كوحدة كله أو قارن كرتو حكاية شيء وقدام بينتي تشيلسي وحي عنده كسر عوا عيار توجا زياج أو حنيكي خطر تبضنا ku cadareeyo ugu dambeyntii Chelsea siyaaj bay gacanta ku dhigeen caawa iyo warar kale oo waaweyn oo ciyaaruhu ku saabsan ayaanu soo qaadan doonaayo war maxaa ka cusub caawa kooxdaada warkii ugu dambeeyay ciyaaraha saacad kasta iyo waqti kasta kala soco channelkeena kan sportiga waniga qodobana caawa idin la socodsiinaya warka habeenimo barnaamijkeena kan sportiga ورada saaxiib channel ku cusub tahay noo subscribe gareysi aad weesho waqti kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo dunida ka joogtaan bal caawiyo ciyaarihii ayaanu soo qaadan doonaa warka ugu weyn caawa ciyaaraha waxa uu yahay Chelsea ayaa ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigtay ciyaartooyga Hakim Ziyech oo ah nin muslim ah Moroccan ah khatar badan waa uu caawin badan yahay waa uu dhaliyaa markuu garab kaaga imaanayna waa nin aadan hor istaagi karin waxa soo Chelsea wuxuu ku dhigay Chelsea way garanayaan Ziyech wuxuu yahay qof Chelsea taageer weydii ama waxaad weydiisaa qof Real Madrid taageer weydii Ziyech wuxuu yahay isaga ku sheegaya waa ninkii Real Madrid marada kaliday ee wareeriyay ee dhibay weydii xataa goolhayaha Chelsea ee Keba Master Mbaxay weydii waa ninkii kubad uu ka tuuray koornaha geeskeeda sida uu dhaliyay weeyaan ninka uu ka dhaliyay goolhayaha Chelsea inta birta loogu dhuftay baana madaxana isaga sii dhuftay iska dhaliyo marka Chelsea way garanayaan Ziyech barihuna Ziyech baa ku dhacay maxay way garanayaan wuxuu yahay Ziyech waa ninkii sanadkan Champions League ku cadaabay weeyaan iyaga walibana ka dhaliyay goolkii la qaroofiyay ee goolka ku leexday haddaba warka ugu dambeeya waxa uu leeyahay Ziyech Chelsea heshiis bay la gaartay halka wararku qaar ay sidoo kale iska Sport ay leeyihiin saacadaha soo aadan ayaa heshiis kula dhameynaya waxaana wax cad caawa in Chelsea ay gacanta ku soo dhigtay ciyaartooyga Ziyech wuxuuna u ciyaari doonaa xilli ciyaareedka dambe ciyaartooyga heshiiskiisa saacadaha soo aadan ayaa si rasmi loogu wada cadeyn doonaa ama loo xaqiijin doonaayo laakiin warka hadda wuxuu yahay Chelsea in caawa heshiis ay la sii gaartay wariyahanka kooxda kubadda cagta ee Ajax Hakim Ziyech Frank Lampard ayaana ninkan doonaya inuu dhameystiro saxiixiisa waqtiyada soo foodle Ziyech ayaa Chelsea kaga hor yimaaday xilli ciyaareedkan laba jeer ciyaaraha Champions League waa nin ku qiimeysan 40 milyan marka labada kooxood waxa la heshiis 40 milyan bay gaareen sida caawa The Telegraph iyo wargeyska kale ay wada qorayaan Ziyech waxa uu wada hadal kula jira kooxda Chelsea warkuna waxay caawa leeyihiin heshiis baa la sii gaaray warka wuxuu yahay caawa Ziyech iyo Chelsea heshiis bay gaareen marka kulay Sky Sportina waxa inta ku sii dareysaa oo caawa inuu ay ka leeyihiin Ziyech iyo Chelsea way heshiiyeen wada hadalabana u socda waxaana ay ku leeyihiin heshiiskan wuxuu dhameystirmayaa maalmaha soo socda gudaheedaba micnuhu caawa ama beri ama habeen dambe heshiiskan waa la gabagabeynaya laakiin ciyaartooygu wuxuu imaan doonaa kooxdu xil ciyaareedku markuu dhamaado Ziyech miyaan kaga hadlay inuu laacib yahay in kale anigu Ziyech haygu wareerin Ziyech waa la wada og yahay adigu baa garanaya adigana waad garanaysaa inuu laacib yahay waa la wada og yahay marka Ziyech inaan in badan ka hadalnaba ahaba laakiin koox mucaarad marka tahay ciyaartooygu marka adigu heli weysid waxaas leedahay Abel Bakaas muxuu tarayina waa la wada yaqaan dadka markii ciyaartooyga ay rabaan ay heli waayaan waxay yiraahdaan arkaas muxuu tarayana Ziyech waa la og yahay waa caawintiisu caadi maaha dhaliskiisu caadi maaha habeenka dhan ugu shaqeynaya waa ninkii isagoo sooman habeenka dhan ordaya ciyaarta Champions League ninkan naf adag weeyaan habeenka dhan saambu wareeganaya runtii Chelsea waxay caawa gacanta ku dhigtay ciyaartooy weyn garabka Chelsea bariyahan waa ruqay nin garabka tuu ka yimaado dadka wareerinaya maan arkin bariyahan aniga odayga markuu baxay hasad kadib nin dadka soo waalaya ayaa hadda la soo wado Ziyech marka warka wuxuu caawiyahay Chelsea heshiis shakhsiyadeed bal si gaartay ciyaartooygu arinkiisuna waa gabagabo Sky Sport waxay leedahay saacadaha soo socda ayaa la dhameynaya heshiiska ciyaartooygu marka Chelsea caaw waxay ugu dambeyntii heshiis la gaartay ciyaartooyga Ziyech xilli ciyaareedka dambe uu ciyaaraya ninkan waayisa kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam tan iyo 2006 iyo 2007 Ziyech waxa uu dhaliyay kooxdan 50 gool isagoo 83 gool caawiyay waxaana loo doortay laba jeer xidiga sanadka ugu fiican ee kooxda kubadda cagta ee Ajax
waxyaabaha kale iyana wararka degdega ah ee caawayna ciyaaraha ku saabsan waxaa kamid ah ciyaartoogii kooxda kubadda cagta ee Dortmund Sancho isaguna waxaa caawa soo baxaya warar wargeysyadu dhan ay qorayaan oo ah haddii uu jiro warka Ziyech ee ah inuu Chelsea noqday ciyaartoy Chelsea noqonayo waqtiyada soo aadan waliba heshiis la gaaray war kale oo weyn baa caawa suuq gelgelaya oo ah Sancho ninka la yiraahdo suuqa waxaad u malaysaa suuq inuu meel dheer ka jiro war suuq dhab waxaa ka dhiman waxaa ka dhiman hadda waxaanu joognaa February baan joognaa March iyo April baa ka dhiman ciyaaruhu may bay dhamaanayaan June suuqi baa dib u furmaya suuqa dhan aad ii sheegayso 2 bil 3 bil baa ka dhiman hadda marka wax la sii shukaansanaya ciyaartooyga oo lala sii heshiinaya war kale ayaa wuxuu caawa leeyahay Sancho wax ugu dambeyn ku aan ku gaarin uu isaga baxo kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund xilli ciyaareedkan waana war breaking ah sida ninka la yiraahdo Ziyech buu degdeg u yahay warkan waa war degdeg oo caawa sheegaya ninka la yiraahdo Sancho inuu go'aan ku gaarin Dortmund isaga baxo waliba ciyaartooygu ka tagi doona leeyahay Dortmund marka xilli ciyaareedkan u dhamaado ayuu ka tagayaa ogowna Chelsea iyo Man United ba isku haya wallow Man United ay kalsooni ku qabto in ciyaartooy ay kula wareegto lacag 100 milyan marka Chelsea ay aqligeeda hadday si sameynaysaa Ziyech hadal si wareegayaan si hadhow Sancho ay dagaalkood u galiyaan Manchesterna kalsooni bay ku qabtaa qaadashada ciyaartooyga Sancho marka Sancho waxa caawa soo baxay war sheegaya in ciyaartooygu xilli ciyaareedku markuu dhamaado uu ka tagi doono kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund war kale oo isaguna hadda soo dhacay baa wuxuu sheegayaa waa caawa degdeg wararku dhan Barcelona ayaa waxay bilowday baa lagu leeyahay wada hadallada ciyaartooyga lagu magacaabo William Jose oo ciyaara Sociedad runtii wariyahana ayaa Barcelona ogolaanaya in la wareegto maadaama Ousmane Dembele ومدة 6 bil garoomadu ka maqnaanayo laakiin waxa kamid mid Moran la yiraahdo yani bad u ciyaara iyo Laurent Moran la yiraahdo iyo mid waxa jira Arsenal flop ahaan jiray u ciyaari jiray Paris la yiraahdo iyo aduro kale baa jira mid Getafe u ciyaara ayaa jira iyo William Jose laakiin wariyahanka fiican ma taqaana waa William Jose waa ninka xilli ciyaareedkan dhibay weeyaan Real Madrid kulankii Real Madrid 4-3 looga adkaanayay Del Reygu 4-3 ninkii weerar weeyaan marka aad ninkii Real Madrid weerarin kara oo Real Madrid waalay oo cadawgaaga weerariyay oo asoo Sociedad loo ciyaaraya cimad weeyaan ninka waa la qaataa marka Barcelona ba idina waxay iska tahay mataqaana koox iska gacan geed ah waxa weeyaan waxay ka fikirtaa xilli ciyaareed dambe ka fikirayaan oo iyagoo hadda wax aruursan kara oo is adkeyn kara inta xilli ciyaareedku waxay ka fikirayaan wax isleeyin ya akhay koox iska saxabad koox iska normal oo iska xoogaa roon le qaata William Jose ayaa ku fiican Barcelona kuna wanaagsan haddaba warku waxay caaw inta ku darayaan maanta oo arbaca ahayd madaxda kooxda kubadda cagta Barcelona oo ugu sareeyo ninka lagu magacaabo Abidal oo ah ninka Barca u qaabilsan directorka kooxda Barca ah waliba u qaabilsan arrimaha suuqa iibsiga ciyaartooygu ayaa la sheegay maanta inuu la kulmayay siteen una kala go'aansanayay wariyahanka uu rabo ama ninka uu damacsan yahay ma William Jose baa lagu keenayaa war makan Getafe baa lagu keenayaa makan Betis baa lagu keenayaa Messi Paris baa lagu keenayaa marka wararka ugu dambeeyay waxay caaw Sky Sports soo warinaysaa in Barcelona ay doonato William Jose warar kale ka soo baxaya magaalada gobolka Catalan Barcelona waxay leeyihiin galabtu waxay ahayd galab ay wada fadhiyeen baa leeyahay siteen iyo ninka lagu magacaabo Abidal oo tababar la weydiinayay weeriyahankee baad rabtaa oo aan ku keenina marka tababaru ayaa go'aansan doona ciyaartooyga loo keeni doono ama ciyaartooygiisa Betis buu dalban doona ama William Jose buu dalban doona laakiin sidee ayaa Barcelona anigu hadaan ku daro taladu waxay lataa William Jose baa nin qatar badan oo waa nin Brazilian xataa suuqii la soo dhaafay ee January Manchester United baa aad u raadinaysay ninka ka ee Jose William Jose ayaa xilli ciyaaradiisii hadda xilli ciyaareedka ninkan Brazil 10 gool ayuu soo dhaliyay waqtidiisii kooxaha kubadda cagta u soo ciyaaray Sociedad xilli ciyaareed buu dhaliyay mid 8 gool buu dhaliyay mid 11 gool buu dhaliyay mid 5 gool buu dhaliyay mid 2 gool buu dhaliyay marka ninka kanu ayaa nin aad iyo aad u khatar badan ah marka waa kaayo arimaha kooxda Barcelona waxa la leeyahay Abidal iyo Siteen waa fariisteen maanta Jose bana la doonay oo maanta tababaru waxa la weydiinayay wariyahanku rabo marka waa kaayo suuq kaliibsigu ciyaartooyga aad meel dheeriyaan kula noqon suuq kaliibsigu ciyaartooyga maba ka dheeraba oo hadda ayaa ciyaartooygu la sii shukaansanaya la sii codsanaya warar kale ugu miisan inuu caawiyeen ciyaaraha waxa kamid ah Real Madrid iyana waxay shukaysaa ugu leeyahay difaaca kooxda kubadda cagta war caawama suuqaynayay wala wada suuqaysan yahay suuqu adu meel dheer ma jiro horyaalka haduu dhamaado suuq waa la furayaa marka Real Madrid iyo Manchester United baa isku haystaa ugu leeyahay ciyaartooyga Mohamed Salah oo u ciyaara kooxda Real Valladolid waa difaac adag oo khatar badan waxa lagu sheegay qiimihiisu inuu yahay muddo 10 milyan baa lagu sheegayo asagu gaan buu ciyaarayo waxaanu ciyaartooyga doorbiday inuu aado Premier League oo Manchester ay doondoonayeen sidoo kalena ciyaartooyga Real Madrid ayaa tartankiisa ugu diyaarinaysa
salaasu waa ninkan shubka ah mataqaana ninkan shubka ah iyo ninka la Ramos oo isag dhigay maxaa laga qaban karaa ninkan shubka iyo Varane iyo Ramos oo isag dhigayna wax ma laga qaban karayo marka salaasu Real Madrid iyo Manchester United baa isku haya waxa kale oo miisan inuu ciyaaraha iyo caawa ninkii Guardiola ahaa waxa uu toddobaadka mar la weydiiyay su'aal ahayd inuu yahay tababaraha ugu fiican dunidu Guardiola uu beeniyay wuxuu yiri inuu tababaraha ugu fiican dunidu iskuma arka buu leeyahay laakiin Guardiola toddobaadkan waxa afkiisa laga helay hal arin oo ahaan jiray in Guardiola uu yahay lacag koox lacag leh inuu wada mooyaane aanu wadi karin koox yacni jacbur ah oo aan ciyaartoy waaweyn joogin halko iyo labado ron saddexdo galab ah inuu wadi karo loo maleynaya baa lidhi oo Guardiola waxa lagu xaman jiray waligiiba haddii uu tababar fiican yahay inuu ku fiicnaan kara kaliya koox dhisan inuu maamuli karo bis iyo koox lacag leh laakiin aanu maamuli karin kooxaha iska dhexdhexaadka ah ee iska galabka ah toddobaadkan afkiisa arrinkaas laga xadayo oo waxa uu yiri mataqaana anigu city oo kale un baan wadi karaa haddii aan city oo kale haysanna waan fashilmayo marada iga dhacayso uu leeyahay marka hadalkaas waxa uu soo bixiyay toddobaadkan hadal ahaa waliid Guardiola lagu xaman jiro ahaa in Guardiola uu maamulo kaliya kooxo waaweyn sida Barcelona oo koox weyn ah iyo Bayern Munich oo koox weyn ah iyo City oo lacag lagu dhisay marka waxa la ogaaday Guardiola yani waxa lagu murmi jiray waligeedba inuu Guardiola ahayn tababaro wadi kara koox يعني نورمال oo يعني xogaa iska roron iyo galab ah isugu jirta laakiin kooxda wadi kara ay tahay oo la guuleysanayo kooxo waaweyn oo lacag leh yani Guardiola waxa uu wadi kara lagu leeyahay koox beesa leh laakiin kooxahan beesadu haysan ma wadi kara baa leeyahay dadkan wuxuu caday wuxuu yiri ma taqaana anigu tababar ugu fiican dunidu ma ihi balse ogaadu ri anu koox aan City hayna ma maamuli karo yani City lacag bay haystaa wala anu kooxaha lacagta haysana ma wadi karo leeyahay marka toddobaadkan Guardiola hada laga gaadgaaday ayaa uu toddobaadku fashilay baa leeyahay wuxuu isaga qudhiisa waa fashilay uu leeyahay oo ah inuu yahay kaliya tababare wadi kara kooxaha lacagta la unba oo aan wadi karin koox ciyaartoy dhexdhexaad iyo kuwa yar ay joogaan laakiin ogow ninka kan dhahaya tababaraha dunida anigu ma ihi hadda ogow waa ninka kusoo guuleystay 29 koob xirfadiisa tababarnimo waa nin aan inaba caadi ahayn ogowna marka laga hadlo Premier League iyo macallimiinta jooga waa macallinka ugu koob qaadista badan weeyaan oo ninka kan 29 koob ayuu haystaa xirfadiisa tababarnimo taasoo ka badan tababare kasta oo jooga hadda horyaalka Ingiriiska Liverpool waxay warar ku sheegayaan in Tim Werner ay xiiseynayaan liiskan ugu jiro ciyaartooyga ayaa loo ogolaaday in RB Leipzig isaga tago xil ciyaareedka soo aadano waxa lagu qiimeeyaa ninka lacagtiisa 52 milyan ogowna ninka kan waa ninka xil ciyaareedkan aadka u khatar badan 36 jirkan oo wuxuu soo dhaliyay 26 gool 34 ciyaar uu ciyaaray marka ninka Liverpool RB Leipzig ninka uu ciyaara Liverpool baad u xiiseynaysa warar ayaa iyana waxay caawa sheegayaan Barcelona bartilmaameedkeeda ugu weyn xagaaga soo socda inuu yahay weeraryahan waxaana Barcelona ay caawa muddo Deportivo leedahay Barcelona way ku lacag beelaysaa oo ay ku hanti beelaysaa sida wiiled weeryahan weyn waana Lautaro Martinez oo ciyaara kooxda Inter Milan waa nin Argentina oo ay Messi isku fiican yihiin Barcelona ayaa dhibaato dhaawac sanadkan u galay oo Suarez iyo Usman Dembele baa ka dhaawacan ayaa kooxdu ka dhaawacano mar xaga dambe Barcelona waxay ogoshahay in ay bartilmaameedkeeda ugu weyn xaga dambe ay ka dhigtaan weeryahan waxaana uu yahay leeyahay ciyaartooyga Lautaro Martinez Lautaro ayaa xil ciyaareedkan u dhaliyay 16 gool 27 ciyaar uu ciyaaray Inter Milan 93 milyan Barcelona diyaar u tahay xaga dambe inuu ku iibsato Lautaro oo baryahan Barcelona dhibka ugu weyn haysta wuxuu ma taqaana waa booska weeryahan suuq la gala ciyaarto dhaxle la soo wada New Xavi New Iniesta la leeyahay mooyaan Barcelona waxay ka dhiban tahay fardhiska goolasha oo goolasha kuma badna odagina waa si yar duqoobaya oo ilmoolo buu noqday dhan kalena Liverpool ayayna waxa leeyahay waxay u dirtay wakiilo ciyaartooyga kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Marcelo Brozovic wariye Liverpool hadda maar loo lahaayay toddobaadkan in derbiga Milan bay daawanayeen oo waxay fiirinayeen qaab ciyaareedka xidiga toddobaadkan soo nooleeyay rajada Inter ee 3-4 gool ay dhalisay waa ninkii goolka hore keenayo darbad xoogan ku bumgareeya goolka toddobaadkan waxa leeyahay wakiil ka socda Liverpool ayaa daawanayay ciyaartooyga khadka dhexe Inter Milan Marcelo Brozovic waxaana ay doonayaan ciyaartooygu inay gacanta ku soo dhigaan waxa kale oo miisan inuu caawa iyo ciyaaraha warar ayaa sheegaya in ninka lagu magacaabo Solskjaer mustaqbalkiisa kooxda Man United uu shaki weyn ku jiro sababtoo xalay waxa la arkay ninka la yiraahdo Edward Wood la taliyihiisa cusub oo la shiraya baa la arkay xalay oo email wada joogaan ninka lagu magacaabo Mauricio Pochettino waxa loo badinayaa ciyaartooyga lagu magacaabo waxa looga badinayaa Ole Gunnar Solskjaer haddii uu mustaqbalkiisa kooxdu haddii uu booskiisa cisho kari waayo waxay u badan tahay in kooxda laga qaadi doono in xalay la isku arkay la taliyaha cusub Edward Wood iyo ninka la yiraahdo Pochettino waxay ka dhigan tahay Manchester waxay qorsheynaysaa in Solskjaer ay xilka ka qaado marka The Sun ayaa soo warinaysa in Pochettino uu xalay la yeeshay kulan la taliyaha gudoomiye ku-xigeenka Manchester United Edward Wood oo lagu magacaabo Neil Ashton taas waxay ka dhigan tahay ninka la yiraahdo Solskjaer wuxuu isu maleeyaa inaan la raacdaynin laakiin Manchester waxay raadinaysaa bedelkiisa oo ah Pochettino qudhiso hadla wuxuu ma taqaana anigu runta markaan ka hadlayo Premier League kooxidu inaan tababar u noqdo baan doonayaa inaan Premier League ka sii shaqeeyo baan doonayaayo midaasna waan sugayaa buuri marka ninkii Solskjaer hadduu isku fuufo xilli ciyaareedku wanaaji waayo xaalkiisa in la raacday waa laga yaabaa
caawa Coppa Italia oo moogtahay Coppa Italia inuu semifinal joogo waan horan kugu sheegayo Napoli iyo Inter ba isku aadayo Juve Milan waa isku aadeen haddaba caawa saacadu markay tahay 12 habeenimo rubdhimo waxa ciyaaraya kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo kooxda Napoli ba ciyaarayo waa ciyaar aad u adag waana semifinalka Coppa Italia habeen dambe samaqaar baa jira Ronaldo iyo Ibrahimovic ba iska hor imaanayo waa Juve iyo AC Milan Inter oo todobaadkan soo wacdaraysay Milan ku baashashay baana caawa la ciyaaraysa Napoli caawa ciyaartoyga Lautaro Martinez baan Inter dib ugu soo laabanaya dadka Talyaaniyo Inter Napoli waa caawa habeen dambe waa Milan iyo Juve waana semifinal Coppa Italia saacaduhuna waa 12 habeenimo urur dhiman labada ciyaarood caawa iyo habeen dambe waxa kale